munaasabad ballaaran ay isugu yimaadeen odayaasha waxgaradka dhalinyarada ayaa maanta waxay ka dhacday magaalada Naceelbo ee gobolka Sanaag. Munaasabadan ayaa ahayd munaasabad wacyigelin ah oo bulshada lagu wacyigelinayay say u qaadan lahaayeen kaarka isdiiwaangelinta doorashooyinka Puntland oo maalinta biri ah si toos uga bilaabi doona gobolka Sanaag iyo Highlandba. waxaana markaasi ay bulshadu ay maanta si weyn sula qaadatay sidii dhammaan bulshada ku nool magaalada Naceelbo iyo weliba tuulooyinka hoos yimaada iyo deegaamada gobolka Sanaag oo dhan ay isu diiwaangelin lahaayeen isdiiwaangelinta doorashooyinka Puntland. waana kuwan iyagoo markaasi isku wacyigelinaya si la isu diiwaangelin lahaa dhammaan shacabka Sanaag iyo weliba shacabka Highland. waxa aynu maanta markaan rabno isbeddelka jira inaan iskaga isku beddelno diiwaangelin aan xor u nahay inaan ku doonanayno doorashada iyo wixii asaasi ah oo inaga maqan dowladda Puntland inaga maqan. waxaan u mahad celinaynaa madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdilaahi Dani oo ilaahay ku guuleeyay hal qof iyo hal cod inuu gaarsiiyo Puntland. waxaan rabnaa haddaan nahay reer Ceelbo inaan si mug iyo miisaan leh aan uga qayb galno diiwaangelinta. danaannu leenahay ka hadli mayno, waa danina ka dhaxaysa cidinama soo dirsan oo wacyigelin ma nihin. waxa ay noo muuqatay inaynu wax iska weydiin arrintaas inay qurux badan tahay inaynu midowno. runtii dadku hadda iyaga is abaabulaya xaafad magaalo qorshayaashaas hadda socda. marka cid walbaaba in ay maanta arrintaas aynu guntiga dhiisha iskaga dhigno intii karaankeenna aynu dadaallo in maanta codkeenu marka waxay noo gooyay ka xisbiga ka madaxweynuhu gudoomiye u yahay in uu codka ina kaga gato. waxa dhacaysa magaalooyinkii inala mid ah hadaynu nahay reer Ceelbo inay maanta degmooyin yihiin sida Buraan, Hingalool, waa dadkii aynu magaalooyinkeenu isleekayn. maanta marka inaynu ka xanaaqno maaha, salaadba waqtigeeda la tukadaa, waqtiga wax la kala goosanayo oo wax la noqonayo hadaynu seexano maalin walba halkaas aynu joogino maaha. marka waqti aan salaadi joogin inaynu qiirano inuu kuma iman, laakiinse waa berita bilaabanaysa baa la yiri. marka inaan u diyaar garowno xaq baan u leenahay seenu ka yeelina sababtoo ah waa arrin baaxad leh oo loo baahan yahay inay say tahay looga soo baxo. marka faa'iidada ay leedahay waa laga hadlay. waxaanu ku soo jirnay doorashada in la doorto baarlamaanka 60 sidoo ku dhisna waa garanaynaa inay soo tartamaan intaas oo musharax hadhowna saameyn ku reebta waliba beelaha ku reebta. laakiinse maanta qof kasta haduu la jeclaan lahaa kan iyo haduu kala jeclaan lahaaba xuriyad buu codkiisa u leeyahay isagaana haduu ku codayn lahaa iyo hadii uu ku aamusi lahaaba cidna ugu ciil qabi maayo. laakiinse saameyn bay ku reebi jirtay waxa la oran jiray hebel baanu soo saari lahayn. marka waa arrin lagaga baxay, waa bogaadinayna waana soo dhaweeyay. wax fiican waa qof iyo cod, waa qofkii codkiisa xor yeeshay meel allaale meeshii uu la jecel yahay uu mari kara ama meeshii uu la koonaato fiican. marka aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa qof iyo cod oo uu madaxweynaha Puntland ku dhawaaqay. waa soo dhaweynaynaa, waana qaadanaynaa, waana danteena. haddeenu ka hor nimaadno waxaynu noqonaynaa dad habsaamay oo awooddoodii jilicsanaatay. twiibi waxa weeye wacyigelin iyo waxa isu sheeg in la kala qaato oo inta odayaashii hore ay soo sheegeen la qaato oo diiwaangelinta la isdiiwaangeliyo waa waajib. bidaa waxa la yidhi bidow caqligaagii bay u yihiin hinaag oo hinaag bay noqonaynaa. markaasoo kale waxa weeye inaynu wacyigelinta iyo diiwaangelinta qaadano oo dad kasta oo hawshaa waday mid bari ka dhacay iyo mid ka shisheeya ka dhacay inaynu kor ka marro baa fiican. guurushan yahay reer Ceelbo diiwaangelinta aad iyo aad u hirgeliyo ku
kuna dadaalo waa loo yahay tuulooyinka iyo inta ku xeerniba inay ceelbu tahay laakiin waxaan leenahay wixii hoose oo dadku xallila karo iyo tani waa kala jaad diiwaangelinta waa in loo dadaala waa in la soo saara waa in sida odayaashii hore sheegeen magaaladu way habsaantay waayo dhulkay la filahayd baa degmooyin qaatay maxaan ku sheegaa ka dhacaysa gobollada qaybtood innagana foolkayna ku soo leh waa soo dhawaynaynaa marka ugu horraysa waxaanu leenahay soo dhowaada waa arrin loo baahan yahay waa arrin bulshada ka dhinnayd waa arrin kow inoo ah oo maanta ka hor aan barina kaga iman waxaanu leenahay waa soo dhawaynaynaa ay tahay ha loo diyaar garoobo waxa laynaga rabo innagu nafta aynu leenahay aan eexayno yaynaa naf kale eexayn kii kaadhkiisa meel kale marinaya ayaa munaasabadda waxaa soo gunaanuday duqa degmada ceelbu maxamed axmed cali salaad iyo weliba caaqil khaliif xasan cali xasan oo markaasi munaasabadda ku duceeyey lana dardaarmay bulshada si ay isu diiwaangelin lahaayeen in aynu siday tahay isu diiwaangelinno oo xoojinno diiwaangelinteena xoojinta waad garanaysaan jira waxa la 18 jir iyo wixii ka weyn waxaa jira inagu waxaynu nahay dad xoola ku noola 15 jirkeena iyo 16 jirkeena waxay la mid noqonayaan dad 20 jiradiisii la mid noqonayaan inaynu 14 jirkeena aynu keenno oo diiwaan gelino wixii noo mara waxaa kaloo jirta waxaa jira dad deegaanka ceelbu ka mid ah ama deegaan kaleba ka mid ah ma aynu lehin deegaanka barameed ay noo yimaado hadduu yahay dhalashada hadduu yahay reer ceelbu laakiin uu degan yahay baran degan yahay baran ka kaalay halka iska diiwaangelin oran mayno hadduu yahay magaalooyinkeenna ku hareeraysan saasoo inoo ku dhan yahay waxaynu ku ballannay inaynu dadaallo si fiican u dadaallo rag iyo gabdho iyo waayeel iyo islaamo iyo odayaalba aynu arday si kas noocaynu hayba inaynu isdiiwaan gelinno codkeenna aan kula soo baxno wixii inaka maqan aynu kula soo baxno وقاتمها ducada aan ku ducaynayaa waxay tahay waa fursad ii muuqatay oo ah in aan meel isugu nimaadno oo ducaysano adduunka abaaraha ka dhacay abaaraha in ilaahay naga saaro ilaahu naga saaro abaaraha waxaan ku daray oo kale boqorkayaga iyo beeshayadaba allaha barakay boqorkeenna iyo beesheennaba allaha barakay intaa waxaa raacsan hadalkii diiwaangelinta oo la isugu yimi odayaal badan baa ka hadlay oo si walba ah waana dhammeeyeen hadalkii odayaashu halkaa ku urureen baanu raacnay oo ku shaqaynayna madaxweynaha iminka talada haya dowladda Puntland Siciid Cabdilaahi Deni ayaa wuxuu noqonayaa madaxweynihii ugu horreeyay ee doorasho qof iyo cod ah ka hirgeliya gobolada Puntland. Axmed Cabdilaahi Ciise Axmed Cashuur magaalada Ceelbu ee gobolka Sanaag.